maanta waxaa ka hadli doonaa xanuunka ku dhaco kala goysyada, siyaabaha ugu fiican ee looga hortago, sida loo daaweeyo iyo waxyaabaha ugu fiican oo laga rabo qofka inuu qabto si uu cudurkan u yareeyo. Fiidiyogan waxaa naga codsaday Fatxi Official. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود في مرينكا أما عذرات كودع فيره. هدي أد جنالك كعصوب فضلا سبسكرايب ده سيادنا على ساعة مرول بفضلا ريح جنب الهدف. xanuunka ku dhaco kala goysyada badana wuxuu ku dhici karaa hal joint ama sidoo kale wuxuu ku dhici karaa laba joint. waxyaabaha ugu badan ee keeni kara qofka in ay xanuunaan kala goysyada waxa ugu badan cudur la dhaho osteoarthritis, sidoo kale rheumatoid arthritis cudur kale la dhaho. waa labada cudur ee ugu badan ee markaas keeni kara in jointska qofka ay xanuunaan. xanuunkan kala goysyada ku imaanaya badana wuxuu ku badan yahay dadka waaweyn marka loo fiiriyo dadka dhalinyarada yaryar, sidoo kalena dadka dhalinyarada uu ku dhici karaa aad laakiin uguma badno. calaamadihiisa ugu badanna qofka waxaa lagu gartaa badana xanuun zaid ah inuu qofka subaxi markuu soo kacayo waliba uu aad u dareemo xanuunka, mararka qaar inuu ku arko xubinta kala goyska ahayd barar, sidoo kale in ay gaduudato eeriyada u dhow oo dhan. waxaa sidoo kale qofka lagu garan karaa in dhaqdhaqaaqiisa uu xadidmo, haddii uu ordi jiray qofka inuu socod bis uu ku soo aruuro, kadibna in markaas socodkii xitaa ay ku adkaato oo qofka u baahday in uu bikoorad ama shay uu cuskado marka uu rabo inuu socdo, ilaa marka dambe qofka uu disable noqdo haddii uu isdaaweynin. calaamadahaas waa calaamadaha ugu badan. maxaa keeni kara marka cudurkan? waxa ugu badan oo keeni kara waa cudurrada jointska inflammationka badana ku rido, ama ha uga imaadaan infection, ama ha uga imaadaan difaaca jirka xumaaday, ama cartilage-ka uu dhaawacmay, ama carjawda markaas inuu jab uu soo gaaro. labada cudur ee ugu badan oo badana xubnaha in qofka ay xanuunaan keeni karo waa rheumatoid arthritis, sidoo kale osteoarthritis. waxaa jira risk factors kuwaasoo qofka cudurka inuu ku dhaco aad u badanayo. risk factorskaas waxaa ka mid ah qofka inuu qoyskiisa hore ee u lahaayeen taariikh in uu ku dhici jiro cudurkan oo kale. tusaale ahaan haddii familka uu hore ugu dhici jiray aabaha ama hooyada oo kale, haddii uu hore ugu dhacay waxaa suuragala cudurka inuu usoo gudbo generationka ku xigo. sidoo kale risk factorka labaad waa da'da mar walba ay sii badato, jaaniska uu qofkan cudurka kala goysa xanuunka ugu dhacayo mar walba uu badan yahay. waxaa sidoo kaleeto la fiiriyaa genderka qofka ama lab iyo dhadig qofka uu yahay. genderka wuxuu mar walba ku xiran yahay cudurka markaas uu qofka qabo. tusaale ahaan haddii qofka uu qabo rheumatoid arthritis, dumarka ayuu aad ugu badan yahay marka ragga loo fiiriyo. haddii la fiiriyo osteoarthritis-kana badana wuxuu ku badan yahay ragga. sidoo kale waxaa ragga ku badan cudurrada uric acid-ka haddii ay bataan lafa xanuunka keeni kara iyo jointska markaas inay bararaan aadna u xanuunaan qofka. risk factorka afaraad waa in ay jug soo gaarto xubintii kala goyska, qofka banooni asagoo dheelaya ama asagoo jaranjaro ka degaya inuu si un jug markaas ay u gaarto, ama shay culus markaas uu qofka u qaado. risk factorka shanaadna wuxuu noqonayaa cayilka. haddii qofka weydkiisa uu aad u badan yahay, markaas kala goysyada oo dhan qofka waxaa laga yaabaa pressure inuu saaro, culeyskaasna uu sababo qofka si fudud inuu isku dhaawici karo, markaas hadhowna uu bilaabo qofka inuu xanuun kala goysyada aad u fara badan isku arko. dhibaatada ugu badan kala goysya xanuunka ka imaan karta haddii aan la daaweynin waxaa ugu horeeya in qofkii uu markaas ku adkaato inuu socdo, ama disable inuu noqdo qofkii uu markaas awoodi waayo waxyaabaha uu u baahan yahay inuu qabto. qofka marka kala goysyada xanuunayaan waxyaabaha uu u baahan yahay maxaa waaye inuu dhakhtarkiisa u sameeyo si loo xaqiijiyo cudurkan inuu jiro ee sax tahay iyo in kale. waa dhakhtarka inuu fiiriyo marka ugu horeysa inay jointska ama kala goysyada ay bararsan yihiin. haddii ay bararsaneen markaas wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo lab test oo markaas dhiigag laga qaado si loo xaqiijiyo. haddii intaas la sameeyo kadibna waxaa loo baahan yahay in imaging la sameeyo, x-ray ama raaja la saaraa, sidoo kale scanner la saaraa. waxaa sidoo kale loo sameynaya in MRI loo sameeyo. waxaa sidoo kale loo baahan karaa in ultrasound la sameeyo, ama markaas computer Soomaalida waxay dhahdo, si loo xaqiijiyo markaas dhibaatada saxda ee haysato jointska ama kala goysyada dhibka haysta, markaas si loo ogaado. see loo daaweeyaa marka cudurkan daawada ugu fiican waa markaas in shaqadii la soo celiyo kala goyska, xanuunkana markaas laga qaado ilaaha xanuunka qaadi karo. si looga hortago marka waxaa loo baahan yahay markaas in la isticmaalo daawooyin yareynaya caabuqyada ku imaanaya markaas jointska. haddii hal joint uu yahay ama hal kala goys ama laba haddii ay yihiin, markaas in la siiyo daawooyinkaas. haddii la siiyo marka ay wax ka tari waayaan qofka,
wuxuu u baahan doonaa dhakhtarkiisu inuu u sameeyo surgery ama qaliin in loo sameeyo. qaliinkaas marka waxyaabaha la sameeyo maxaa ka mid ah in qofkii kala goyska markaas repair lagu sameeyo oo markaas wixii ka qaldan loo habeeyo. haddii jointska ama kala goyska dhanna uu khariban yahay markaas in asagoo dhan laga bedelo oo loo sameeyo joint replacement iyo qaliimo kaloo fara badan. qofka marka si uu markaas uga qayb qaato daaweyntiisa asaga muxuu samayn karaa oo lifestyle-kiisa ka bedeli karaa, gurigan uu ku samayn karaa. badanaa haddii qofka ay jointska xanuunayaan wuxuu u baahan yahay inuu ku dadaalo inuu exercise sameeyo. exercise-ka ma ahan qasab inuu markaas sameeyo exercise badan oo tiro badan inuu sameeyo ama si xoog inuu u sameeyo, mar walba muhiim maahan. waxaa muhiim ah si moderate inuu sameeyo, dhaawac asagoo aan isku keenin. sidoo kale haddii miisaan badan uu qofka saaran yahay jointska ka sheeganayo inuu miisaankaas uu dhimo oo weight loss sameeyo, ayadana waxyaabaha ugu muhiimsan waay. sidoo kale xubinta markaas xanuunaysa ama kala goyska markaas xanuunayo in uu ku dadaalo qofka in uu kululeeyo, sidoo kalena inuu qaboojiyo. maxaa ka wadnaa marka in mararka qaar biyo kulul in uu boorso kaalda ku shubo kadibna uu saaro meesha, sidoo kaleeto barafna inuu saaro jointska. labadaba waxay yareynayaan qofkii xanuunkii. qodobka ugu dambeeya oo qofka samayn karana waxaa waaye xubintii kala goyska inaysan issii dhaawicin. si looga ilaaliyo marka wuxuu isticmaalayaa assistive deviceskaas marka waxaa ugu horeeya bikooradoo kale qofka inuu isticmaalo, kaba markaas fiican oo dhaawac aan soo gaarsiinayn inuu xirto, in bahasha lagu socdoo kaleeto uu isticmaalo ama walkar inuu isticmaalo, in musqulaha uu isticmaalayo musqul markaas aan dhaawacaynin xubnihiisa ama kala goysyadiisa inay noqoto. waxyaabaha uu qabanayo markaas sida salaada, shaqada, kulli inuu isku dayo waxaan dhaawacin inuu ka dhigo. hadday kugu adag tahay xitaa inaa markaas sida caadiga dadka u tukadaan inaa u tukatid, fadhi inaa ku tukatid. haddii markaas lagu diro shaqo xoogan oo markaas kuu keeni karto in uu kala goysyada ay ku dhaawacmaan, ha ku adkaysanin, sababtoo mar walba aad sii dhaawacdeed kala goyska waxaa kugu imaanaya in aad socon weyso ama aad dhib ka weyn aad isku keentid markaas. waxyaabaha kale la arkay oo dadka badanaa kala goysyada ay xanuunayaan aad u anfaca waxaa ka mid ah acupuncture-ka ama needleska, cirbadaha markaas qofka in lagu mudo oo badanaa Chinese-ka ay sameeyaan xanuunka aad inuu qofka uga yareeyo. waxaa sidoo kaleeto jiro in cartilage-ka ama carjawda cunooyin loogu talagalay oo glucosamine ama chondroitin cunooyin la dhaho oo sida tabletka kale u diyaarsan markaas inuu qofka isticmaalo. waxaa sidoo kaleeto aad u sheegeen studies fara badan fish oil-ka inuu qofka isticmaalo. haddii fish oil-ka qofka uu isticmaalo waxay badanaa yareynayaan calaamadaha arthritis-ka ama kala goysyada qofka inay xanuunaan oo kale. wuxuu sidoo kale qofka u baahan yahay in uu sameeyo slow stretching movements ama inuu qofka yoga kaleeto inuu sameeyo si tartiiba jirkii uu mar walba u kala bixiyo oo dhaqdhaqaaqyo aan dhaawacin qofka uu sameeyo. waxaa sidoo kale aad looga mahadceliyaa oo qofka anfacayso haddii uu markaas uu qabo arthritis ama jointska ay xanuunayaan massage in loo sameeyo mar walba. massage-ka wuxuu sidoo kale ka faa'iidi karaa in uu habwareega dhiigga uu u fiicnaado, jointskana markaas uu asagana ay u reestaan ama xanuunkii uu ka yaraado. talada ugu dambeysa marka qofkii jointska ay xanuunayaan ama kala goysyada ay xanuunayaan aan siin lahaa waxay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtarkaaga gaar, sababtoo ah jointska inay ku xanuunaan waxaa keeni kara waxyaabo aad u fara badan. soo isku day mar walbeeto oo dhaqsi ah dhakhtarkaaga u tagtid. way ka fiican tahay haddii aad isdayacdid, sababtoo ah dhib badan aa kaa soo gaari karo. intaas waa talo caafimaad. waxaa rajeynaa videogan inaad ka faa'iideen. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo qor commentiga. mowduuca aad doonaysa in laga soo hadlo fadlan noogu soo dir commentiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.